madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa maanta gaaray deegaanada xeebta ay roobkii duufaanta watay ku dhufteen isagoo dareen murugal la wadaagay dadkoodii iyo dunyadoodiiba ku waayay daadadka iyo dabaylihii ka dhashay roobabka duufaanta watay ee ka dhacay xeebaha Soomaaliland toddobaadkii hore madaxweynaha Soomaaliland oo saaka diyaarad kumaatiga u kaca oo ay dawladda Imaaraadka Carabta ugu soo gurmatay in loogu gurmado dadkaas duufaantu waxyeeleysay ka raacay garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa waxa uu sheegay dadka uu kula hadlay deegaanada uu maray inay dawladda Soomaaliland u damqanayso dadkeeda isla markaana wax kasta oo ay awoodo ku garab istaagayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi waxa uu amaanay una mahad celiyay dawladaha u soo gurmaday Soomaaliland ee ay ka mid ka yihiin Imaaraadka Carabta iyo Jamhuuriyadda Djibouti kuwaas oo ku tilmaamay inay u muujiyeen damqasho walaalnimo Soomaaliland waxa ay saaxiibo badan saaxiibka iyo Norway ku jira markay dhawaan ayaa la bartaa Djibouti Carabta waa ka sarfeed u soo horeysay qaar kale oo wax badan inoo tarixaanay aan inta inoo soo gudbaa waxay soo kala kale Soomaalida aad iyo aad bay dadku isugu gurmadeen idinkana Ilaahay waxaan ku rajaynayaa wixii xool ka badan inay halkooda wax khayr qabay noo keeno dawladda Soomaaliland oo adeegsanaysa laba diyaaradood oo ay dawladda Imaaraadka Carabta u soo dirtay Soomaaliland si ay ugu gurmato dadkeeda ku waxyeeloobay roobabka duufaanta watay ee ka daayay xeebaha ayaa tan iyo shalay ku mashquulsanay sidii ay cunto biyo dawooyin iyo bustayaal u gaarsiin lahayd dadka ku sugan deegaanada ay duufaantu haleeshay roobabka duufaanta watay ee ka daayay Soomaaliland ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 40 ruux halka qaar kalena la leeyahay waxay roobabku laayeen kumanaan kun oo neef oo xoolo ah oo isugu jiray ari iyo geel waxa sidoo kale ay sababeen inay dumaan boqolaal guri oo isugu jiray kuwa jingada ah kuwa dargada ah iyo kuwa buulal ah ama aqal Soomaaliya ah geeda badan waxay gooyeen wadooyinkii isku xidhayay magaalooyinka kala duwan ee ku teedsan xeebaha Soomaaliland taasina waa sababtay in loogu gurmado diyaaradaha qumaatiga u kaca oo uu madaxweynaha Soomaaliland ka dalbaday Imaaraadka Carabta Cabdi Fataax Ismaaciil Mursal Somali News TV Hargeysa